Kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo waxyaabaha ay qorayaan wargeysyada ka faallooda guud ahaan kubadda cagta saacadihii ugu dambeeyay. Muuqaalkeena waxaynu ku soo qaadi doonaa maanta Liverpool oo heshiis qaali ah ku abaalmarisay xidigeeda Diogo Jota, Koulibaly oo sameeyay arrin ay aad ugu farxeen jamaahiirta kooxdaasi Chelsea. Waa kuwee labada kooxood ee uu aadi karo Cristiano Ronaldo inta aanu xidhmin suuqa kala iibsiga. Chelsea oo la wareegtay xidig ka ciyaara horyaalka Premier League Aguero oo ka xanaaqay go'aamada ay sanadkan kooxda Man City ay ku fasaxday waryahanadeeda. Lionel Messi oo jebiyay iskoor xidhnaa Bale iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga. Muuqaalkan inteena bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareysa asxaab badan oo gaadho. Haddii ay tahay markii ugu horreysay la soo booqatana fadlan subscribe noo saar si aad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada. Saaxiibayaal waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inaad soo booqataan boggaanu ku leenahay Facebookga, TikTokta iyo weliba Instagramka. Halkaas ayaan soo dhigi doonaa wakaa page-ka aan ku leenahay Facebookga. Waxaan idinkula wadaagnaa inta badanba muuqaalada aynaan ka gaadhin YouTube-ka iyo waxyaabaha dhacay ee si degdeg ah aad nagala socon kartaan wakaa soo booqdaan leenahay saaxiibayaal. Haddii aynu ku bilowno kooxdaasi Liverpool ayaa laacibkeeda da'da yar ee Diogo Jota ku abaalmarisay heshiis waqti dheer oo ku sii qaadan doono kooxdiisa Liverpool, waxaana maanta uu qalinka ku duugay heshiis ilaa 2027 ka soconaya oo ku qaadanayana lacag fiican. Kadib dadaalkii badnaa uu sameeyay xilli ciyaareedkan oo kooxdiisa waxyaabihii badnaa uu soo qabtay ay Liverpool ay u garteen inay laacibkan ay soo bandhigaan heshiis waqti dheer oo ku qaadanayo lacag fiican. Laacibkan reer Portuguese oo kooxda Liverpool kaga soo biiray Wolves tan iyo markii kooxda ku soo biiray waxa uu muujiyay dadaal badan iyo xirfadiisu ay kor sii kacayso, waxaana Liverpool garatay inay xidigan ay sii haysato sanado badan. Jamaahiirta kooxdaasi Chelsea ayaa aad uga farxay go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay laacibka dhawaan ku soo biiray kooxdooda ay kala soo wareegeen kooxdaasi Napoli si uu ugu buuxiyo booskii uu ku banneeyay Antonio Rudiger oo dhawaan ku biiray kooxdaasi Real Madrid. Haddaba Khalidou Koulibaly ayaa qaatay go'aan geesinimo leh, waxaana uu khadka telefoonka uu kala hadlay litankii hore amaba kabtankii hore ee kooxdaasi Chelsea Johan Terry, waxaana si toos ah aan gambasho lahayn ugu sheegay inuu doonayo inuu xidho lambarkiisa 16aad oo inta muddada ah uu soo xidhnaa kooxdaasi Chelsea. Tan iyo markii uu ka fadhiistayna haba yaraatee cid lambarkiisa xidhatay aanay jirin. Haddaba Johan Terry ayaa markii hore ku qoslay markii uu khadka telefoonka la soo hadlay Koulibaly, markii dambena waxa uu ugu mahadceliyay sida quruxda badan leh geesinimada leh ee uu weydiistay lambarkiisa, waxaana uga mahadceliyay sida uu u shafay. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay tan iyo markii uu ka fadhiistay in dib loo xidho lambarkiisa oo aan inta muddada ahba aan la xidhan, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay oo ku niyadsan yahay inuu xidho laacibkani. Haddaba jamaahiirtani ayaa aad ugu farxay sida uu laacibkani oo go'aankaasi u qaatay oo u sharfayna kabtankoodii hore ee kooxdaasi Chelsea inta muddada ah kabtanka u ahaa. Dhanka kale Cristiano Ronaldo ayaa aad waxa uu soo taray wararka sheegaya inuu kooxda ka baxayo, inkastoo oo kooxda Manchester United waqti aan dhaweyn uu ku wargeliyay inuu doonayo inuu ka baxo kooxda Man United isla xagaaganba si uu helo koox ka ciyaarta Champions League. Haddaba tan iyo markii uu sameeyay falkii kulankii dhaweyd uu iskaga baxay garoonka, waxa soo taray wararka sheegay inuu kooxda ka baxayo, waxaana jira laba kooxood oo aad ugu dhow inay laacibkan ay la wareegi karaan. Cristiano Ronaldo sanadkani waxa uu aad u danaynayaa inuu ka baxo. Sababta uu sameeyay kulankii dhawaan uu garoonka baxayna waxa ahayd inuu ku qasbo in Man United ay xagaagan ay fasaxdo, waxaanu arrintaasi u sameeyay sidoo uga bixi lahaa Manchester United ama heshiiska sanadka kansalaan ama iibiyaan. Rabitaankiisu waxa weeye inuu ka baxo kooxda Manchester United, waxaana jira laba kooxood oo aad ugu dhow oo la wareegi karo. Inkastoo kooxii waaweynaa ee lagu tuhmay mushaharkiisa tunka weyn ay bixin karayaan laacibkan ay dhamaantood iska fogeeyaan, ha noqoto Chelsea, PSG, Bayern, dhamaantood ay sheegeen inaanay laacibkan aanay u soconin la soo wareegaan.
laacibkana waxa uu kasoo horjeedaa haba yaraatee inuu ciyaaro Europa League oo sanadkan uu ka maqnaado Champions League. Haddaba kooxaha aadka ugu dhawaaya Atletico Madrid inkastoo ay jamaahiirta Atletico Madrid ay go'aankooda ah inuu Cristiano Ronaldo kusoo biray cadeeyeen, haddana waxaa jira marka laga yimaado madaxweynaha hadalku uu sheegay, waxaa jira tababarahaasi Simeone kooxda Atletico Madrid ayaa isagu aad u dareynaya 17 jirkan inuu kooxdiisa kusoo biro, waxaana uu arkaa inuu kooxdaasi kusoo biro inay tahay faa'iido oo ku faa'iidi karo sidii 2020 markuu kala soo wareegay Suarez kooxda Barcelona uu sanadkii ku xigay oo ku qaaday horyaalka liiga waxyaabo badan ka caawiyay. Waxa uu aaminsan yahay inuu laacibkan uu yahay sidii Suarez oo kale uu ku faa'iidi doono, marka waxaa laga yaabaa in Simeone uu dhaqaaqi karo si uu la soo wareegi lahaa laacibkani. Waxa kale oo jira kooxdaasi Napoli oo idan lala xiriirinayo, waliba si aad loo xiriirinayo jamaahiirteeda iyo kooxdaasiba aad u doonayaan, waxaana ay u ballan qaadeen Ronaldo haddii uu kooxdooda kusoo biro ay ka dhigi doonaan legend kooxdaasi sida Maradona oo kale. Si ay Maradona u maamuseen si la mid ah ay maamusi jiraan Cristiano Ronaldo haddii uu kusoo biro. Kooxdaasi Chelsea ayaa heshiis kala gaadhay kooxda Brighton laacibkeeda baasha bidix ee Cucurella oo muddooyinkii ugu dambeeyay lala xiriiriyay kooxdaasi Manchester City, waliba uu aad u daneynayay inuu safkiisa uu soo kordhiyo tababare Pep Guardiola si uu ugu buuxiyo laacibkani positionkii uu ku baneeyay Zinchenko oo dhawaan ku biiray kooxdaasi Arsenal. Haddaba Chelsea oo muddooyinkii ugu dambeeyay qorshaha suuqa ka lahayd ay ka qastay kooxdaasi Barcelona waxay iminka doonaysaa inay laacibkan ay ka afduwato kooxda Manchester City, waxaana ka go'an tababare Thomas Tuchel inuu kasoo dejiyo kooxdiisa Cucurella. Wararka ayaana sheegaya laacibkan oo ogol yahay inuu kooxdaasi Chelsea u wareego mar hadiiba labada kooxood ee Brighton iyo Chelsea ay go'aan ka gaadheen. Laacibkan wuxuu ogol yahay inuu wareego kooxdaasi Chelsea. Legendkii hore ee kooxda Manchester City Sergio Aguero ayaa sheegay inuu aad u la yaaban yahay sanadkan go'aamada ay qaadatay kooxdiisa Manchester City, waliba go'aamada ay ku fasaxday weeraryahanada kooxda sanadihii ugu dambeeyay ka caawinayay inay ku guuleysato horyaalka Premier League, waliba ka caawinay in dhowr sano xiriir ay ku guuleysato horyaalka Premier League sida Raheem Sterling iyo waliba Gabriel Jesus. Waxaana uu sheegay go'aamada ay sanadkan ku fasaxday labadaasi weerar ay kooxdiisa ay ka qoomay doonto ayna aad u qaldan tahay go'aamada ay labadaasi xidig ee waaweyn ay waliba u gacan gelisay laba kooxood oo kula tartamay horyaalka ay cadow yihiin kooxda Manchester City sida Chelsea iyo Arsenal oo isla xagaaganba kula tartamay horyaalka Premier League oo ina cadaadis badan ay kala kulmi doonaan iyagoo waliba weeraryahannadoodii gacanta u geliyay. Haddaba haddii aan kasoo gudbino arrintaasi, Sergio Aguero waxa weeye weeraryahanka kaliya ee ugu hadriga badan horyaalka Premier League. Ma jiro weeraryahanadii soo maray ha noqoto Suarez, Henry, Rooney, Harry Kane, weeraryahan inta hadriga uu dhaliyay Sergio Aguero horyaalka Premier League uu ka dhaliyay waxa ku dhaliyay horyaalka Premier League 12 hadrig. Mana jiro weeraryahan soo maray horyaalka Premier League oo intaasi oo hadrig ka dhaliyay, waana ka kooxdiisa Manchester City digniintaasi u diray oo uu sheegay in sanadkan ay qalad aad u weyn sameeyeen weeraryahannadoodii intaasoo sano soo caawinayay ay waliba gacanta u geliyeen kooxo ay cadow yihiin oo kula tartamaya horyaalka Premier League. Lionel Messi ayaa jabiyay iskoor xidhnaa Bailey. Xidiga kooxdaasi PSG ayaa noqday laacibka ugu goolasha badan leh kulamada finalka goolasha laga dhaliyo ama laacibkii ka dhaliyay gool kulanka finalka ee kama dambaysta wuxuu noqday laacibka ugu badan ee gool ka dhaliyay, waxaana uu ka dhaliyay dhammaan finaladii uu soo ciyaaray laacibkani 32 gool. Kulankii ugu dambeeyay finalka ee ay iska hor yimaadeen kooxdaasi Nantes ay ku kala qaadayeen France Super Cup, laacibkan gool ka dhaliyay goolkaas ayaa ka dhigay laacibka ugu goolasha badan leh kulamada finalada, waxaana uu dhaliyay 32 gool, waxaana sidaasi uu ku dhaafay rikoodhka Bailey oo xidhnaa oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay barbar ahaayeen. Bailey ayaa ka dhaliyay finalada 31 gool, halka Neymar saaxiibkiisa kooxdaasi PSG oo isaguna uu ka dhaliyay finalada 21 gool. waana runaantii waanu ka daayiriyay Lionel Messi laga yaabaa in iskoorkaasi uu sii dhawaan doono. Laacibka sida aadka u xifaaltamaan Lionel Messi dhan kastaba ha noqotee ayaa isaguna 20 gool
ka dhaliyay kulamada finaalada waa Cristiano Ronaldo. Sidoo kale Romario ayaa isaguna kusoo xigay Cristiano Ronaldo isaguna 19 gool ka dhaliyay kulamada finaalada. Hadda dhammaan Lionel Messi waxaa noqday kulankii dhawaa ee finaalka u ciyaaray xidiga ugu goolasha badan leh kulamada finaalada, isagoo waliba qarka u saarmay oo kusii dhawaaday rekoorka Dani Alves xidiga ugu goolasha ugu koobka badan leh kubadda cagta. Iskoorkaasi ayaanu kusii dhawaanayaa waana ka noqday xidiga ugu goolasha badan leh. Iskoor badan ayaa sugaya Lionel Messi. Iskoorkiisa ugu weyn ee laga dareemayo inuu aad u daneynayna waa iskoorka noqday xidiga ugu koobka badan. In yarna way ku dhiman tahay sanadkii inuu jabinayna in laba cali isweydiinayso oo gaari doono. Waa ka imika noqday xidiga ugu goolasha badan leh kulamada finaalada. Wararkeena ciyaar wanaagsan saaxiibayaal, intaynu kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.